Assalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal. Waxaan ahay Nuur. Sidoo kale waxaan ahay ilaaliyaha buugga dhimashada. Waxaan doonayaa sheekadii in aan idinkaga sii wada halkii ay inoogu joogtay ee daawasho wacan iyo isla socod wanaagsan. Markii aan kasoo degnay baska, waxaa isla soconay aniga iyo saaxiibkay. Waxaan arkay weli ninkii oo socda gadaasheeda. Waxaan sagootiyey saaxiibkay. Markii aan kala tagnay saaxiibkay, waxaan gadaal ka maray ninkii. Waxaana ka qabtay indhaha. Waxaana u sheegay in aan dili doono, aana ahay yaanyuurta madow. Ninkii waa uu cabsaday, waxa uuna yidhi, sideen kugu aaminayaa in aad tahay yaanyuurta madow? Magacaasoo loo adeegsan jiray ninkii dadka dili jiray. Waxaan idhi waxaan dilayaa ninkan horteena taagan. Buugaygii ayaan soo baxsaday, waxaana ku qoray magaciisa. Asigoo u jeeda ayuuna dhintay ninkii. Markii uu ninkii dhintay, waa uu cabsaday, waa uuna argagaxay. Waxa uuna yidhi, waan ku baryayaa ha i dilin. Balse waxaan u sheegay ninkan inaanan iska dilin oo uu ahay tuug. Kaliya aan dila tuugayaasha. Markii uu intaas maqlay, waa uu ooyay. Waxa uuna yidhi, waan ku baryayaa ha i dilin eed maxaad rabtaa? Waxaan u soo bixiyey warqad. Waxaan idhi, dadka kula jira kiiskan inay baaraan dhammaan magacyadooda ii qor. Wuxuu yidhi waa yahay. Warqadii ayuu iga qaaday. Wuxuuna bilaabay inuu dhammaan magacyada qoro. Xitaa ma uusan arkin wejigayga. Dhammaan magacyadii markuu ii qoray, waxaan soo istaagay wejigiisa hortiisa. Waxaana ku idhi, nasiib xumo, adigana waad dhimanaysaa. Maxaa yeelay ma jiro qof arkay yaanyuurta madow oo sii noolaado. Halkaas ayuu ku dhintay isagiina. Markii uu dhintay waan ka tegay. Waxaan soo aaday gurigayga. Waxaan u imaaday hooyaday, waan salaamay. Waxay i tiri, ii waran wiilkaygii oo sidee tahay waad soo dahday. Waxaan idhi hooyo maya, waxbarashada baan ku soo daahay. Aabba aawe ayaan ku idhi. Waxay tiri, aabbaha wuu soo dhow yahay. Waxaan idhi, waxaan doonaynaa in aan casheeno. Waxay tiri aabbaha waa uu ku xiisay, waa uuna imaanayaa. Dhammaanteenna waa isla casheynaynaa. Ee orod wiilkaygii oo dharka iska soo bedel, buugaagtana iska soo dhig. Waxaan imaanay miiskii cashada aniga iyo walaasha iyo hooyaday. Sidoo kale, waxaa isla markiiba noo imaaday aabbaheen. Miiskii ayaa la wada fadhiistay oo si wanaagsan ayaa loo casheynayaa. Wuxuu igu yidhi aabbahay, waan ku xiisay wiilkaygiiow, laakiin waxaana mashquuliyey arrintan yaanyuurta madow. Ninkan oo ah nin aad u dhib badan, waxaan ku jirnaa raadintiisa. Waxaan weydiiyey, aabbo, weli wax wara kama helin miyaa? Wuxuu yidhi maya, wax wara kama helin, laakiin waxaan ku guda jirnaa weli baaristiisa. Maalin maalmaha ka mid ah waan soo qaban doonaa. Waxaan weydiiyey ninkii loo xilsaaray kiiskan oo lagu soo gaabiyey magaciisa xa. Wuxuu yidhi, ninkaas waa nin aad u xirfad badan, arrimahaana ku dheereeya. Waxaan rajaynayaa in uu soo qabto ninkaas oo soo helo maalin maalmaha ka mid ah. Waxaan idhi, Allah idiin fududeeyo aabba arrinkaas. Laakiin waxaan idhi aabbahay, aabba is ilaali arrintan intaad ku mashquulsan tahay, waxaan ka baqanayaa inaad iga dhimato. Wuxuu igu yidhi aabbahay, maya wiilkaygiiyo waan dadaalayaa. Waxaan idhi, Allah ku xifdiye aabe. Waxaan idhi, cashada waa bogay hooyo iyo aabbo, hadda waxaan doonayaa inaan sii seexdo. Aabbahay wuxuu yidhi haye, waxaan imaaday qolkayga. Markii aad damcay inaan furo, waxaan arkay qaabkii aan u xiray inuusan u xirnayn. Waxaan garwaaqsaday qolkayga inuu qof ii soo dabamaray oo qof soo galay. Maxaa yeelay waxaan dareemay in aabbahayga uu iga shakisan yahay, gaar ahaan maalmahan dhaqamadayda iyo qaabka aan u dhaqmaayo. Hadda, waxaan doonayaa in aan si caadi ah iska dhigo. Waxaa ila socda shaydaankii madow. Waxaan soo galay qolkayga, laakiin shaydaanka madow waxaan u sheegay in aan qabo baqdin aad u weyn. Uusan ii imaanin hadda kadib, bannaanka aan ku kulmi karin sidoo kalena qolka. Waxaan kaloo weydiiyey in uu soo baaro guriga haddii lagu xiray kaamirooyin in kale. Waa uu soo baxay, waxa uuna soo baaray gurigii. Wuxuuna ii sheegay in ay ka buuxaan kaamirooyin aad u fara badan. Aniga hadda waxaan iska dhigayaa arday cashir diyaarsanayo. Si tartiib ah ayaana u qorayaa magacyada tuugada. Weli waxaa socda in ay tuugadii si tartiib ah u dhimanayaan. Kaamirooyinkii iigu xirnay qolka waa iga eeganayaan kuwii wax baarayay. Laakiin waxaan u ekahay arday wax diyaarsanayo kale oo wax iga shakinayaba ma jiro. Halkaa ayaan shaqadeeda ku wataa. Aabbahay waa uu yaaban yahay. Waxa uuna arkaa dadkii oo dhimanayo iyo sidoo kale anigoo wax akhrisanayo. Halkaa ayuuna ka ekaaday shakidoodii.
maadaama aan ahay qof wax iska diyaarsanayo. Kaamirooyinkiina waa ay ka fureen qolkayga. Waxaa ii soo gargaraacday albaabka hooyaday. Waxaa igu tiri, wiilkaygii maxaa kugu dhacay, iga fur albaabka. Waan ka furay waxaana idhi, hooyo sorry waan ka xumahay. Saaka markii aan salaada tukaday kadib waxaan moodayay inaan furay laakiin waan xiray. Waxay igu tiri hooyaday dhib ma leh, laakiin iiga waran wiilkaygii waxbarashadaadii. Waxaan idhi hooyo wax dhiba ma lahan, waxbarashadeedu waa ay ii fiican tahay. Waxaana doonayaa sanadkan inaan kaalinta koowaad galo. Ilaahay ha kuu rumeeyo ayay tiri. Waxaan weydiiyey hooyo maxaad iigu wacday een kuu qabtaa. Waxay tiri waan iloobi gaaray, waxaan doonayaa inaad aabaha u geyso dharkan maxaa yeelay ma imaan raba maanta. Waxaan ku idhi waayahay hooyo waan u geynayaa. Qolkaygii ayaan soo xirtay kadib markii aan hooyo dharka ka soo qaaday. Waxaan qarsaday buugaygii meel ayaana ku xafiday. Markii aan qolka soo xirayna waan soo baxay. Waxaan imaaday xafiiska. Waxaana joogay laba islaan. Mid ka mid ah waxa ay ahayd mid baaraysa kiiska ninkan loo yaqaano yaanyuurta madow. Midii kale ayaan u dhiibay dharkii. Waxaan la hadlay islaantii kale waxaan idhi, ma doonaysaa in aan kaa caawiyo kiiskan? Waxaan ahay ninka madaxda idiin ah wiilkiisa. Waxaana laygu yiraahdaa Nuur. Waxay tiri maya ma doonayo caawimaad. Waxaan ku idhi aabahay xitaa waan ka caawin jiray kiiskan oo aqoon fiican ayaan u leeyahay maxaa yeelay waxaan ahay wiil aad u aqli badan. Waxay igu tiri waayahay. Waxaan ku idhi meeshan waa meel shaqo, ka waran haddii aan banaanka ku wada hadalno. Waxay tiri waa arrin wanaagsan. Waxaan soo aadnay banaanka. Waxaan weydiiyey magaceeda. Waxay igu tiri waxaa la dhahaa Salma. Waxaan ahay xaaskii nin maalin dhaweyta la dilay kaasoo ka mid ahaa dadkii baarayay kiiskan. Waxaan idhi ninkan yaa dilay. Waxay tiri maxaad ii weydiisay su'aashan ayadoo aad iiga cabsatay. Waxaan idhi ha cabnin, waxaan ahay ninka taliyaha wiilkiisa. Waxay tiri waan kuu sheegayaa. Maalin maalmaha ka mid ah ninkayga waxa uu ilaalinayay arday laga shakiyay. Ardaydii waxa uu soo baskana waxaa la soo raacay ninkaygii. Waxaa isla goobtaas ku dhintay ninkaas wuxuu ahaa nin dambiile ah. Waxaa laga shakisan yahay ardayga sidaas sameeyay in uu yahay yaanyuurta madow. Maxaa yeelay yaanyuurta madow waxa ay ahayd mid disho kaliya dadka dambiilayaasha ah. Hadda aniga waxaan doonayaa in aan dilo iyada. Maxaa yeelay qof walbo arintayda ogaado waxa aan rabaa inaan dilo. Buugii markii aan ku qoray magaceeda waxaan fiiriyay saacada weli ma aysan dhimanin. Waxaan fahmay in ay tahay qof aad u aqli badan ina qiyaamay. Magaceeda saxdana aan ii sheegin. Waxaan iri warqadaada aqoonsiga keen maxaa yeelay waxaan ahay taliyaha wiilkiisa. Waxaan ka shakisanahay jaajuusad inaad tahay. Waxay tiri aniga jaajuusad ma ihi, warqadeedii ayayna ii dhiibtay. Markii ay ii dhiibtay warqada aqoonsiga waxaan ogaaday magaceedii. Markii aan magaceedii ogaaday waxaan ku qoray buugga dhimashada. Waxaana ku qoray in ay isku dili doonto qaab isdilid ah oo ayada ay isdaldali doonto. Waxaan fiiriyay saacadii. Waxay tiri maxaad mar walba u fiirinaysaa saacada? Waxaan idhi wax yar kadib ayaad ogaan doontaa sababta aan u fiirinayo saacada. Waxaan dilayaa qof walbo isku dayo in uu aniga i dilo. Dhimashada islaantan ma waxay noqon doontaa midii lagu ogaan lahaa yaanyuurta madow oo ah shakhsiga ku sumadaysan dilitaanka dadka, mise keeskeeda wuxuu noqon doonaa qof caadi ah oo iskiis isku dilay oo lama ogaan doono. La socda qaybta xigta oo aad u xiiso.